السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسن أخياري ميل والبو أجوبتان رسول كان صلوات الله وسلامه عليه حلقة ومدة كجتري وحويان دينتنا شرفت بدن صحابة رب بدن بوحي سوريان رسول صلوات الله وسلامه عليه سما لله إنه وآخرين جري أذكار صبحي وآخرين جري قلبكي وآخرين جري سلادها كدبن وآخرين جري أذكارتا waxaa kamid ah xadiis uu warinay Abu Hurairah radiyallahu anhu wa ardaahu leeyahay rasuulku wuxuu dhihi jiray la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir qofkii akhriya maalinkii 100 jeer wuxuu la mid yahay qof xureeyay 10 adoon ah qof xureeyay 10 adoon ah ajarkii loo qori lahaa ajar la mid ah ayaa loo qorayaa yiri talabaadna wuxuu yiri boqol wanaag ah baa loo qorayaa diiwaankiisa ama buugiisa wanaaga ah ayaa lagu qorayaa boqol wanaag ah sidoo kale wuxuu yiri tan saddexaad boqol xumaan ah ayaa laga tirtirayaa buugiisa xumaanta ah tan afraad waxay tahay ducadan fadli ahaan ay leedahay in ilaahay xir ama shaydaanku uu kaga xijaabayo maalinkaas ilaa ay qoraxda ka dhacdo tan shanaadana sidoo kale waxay tahay in maalinka qiyaamaha uusan imaan doonin qof boqol ka akhriyay qof ka fadli badan illa qof akhriyay mooye intuu asaga akhriyay ama in ka sii badan marka fadliga bay leedahay aan ku dadaalno subaxi galabki maalinkeeno idil inaan akhrino oo aan ku cilcilino la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فضيغاس تردا بدن شنتا بي لهدهي ان بقول وناغا لوو قرو بقول حمانا ليستيغاغا laga tirtiro 10 qof nin xureeyay inaad la mid noqotid in adiga shaydaanka dhaxdiina ilaahay darbi uu ka dhiso oo ay kulan idin sameeynin in maalinka qiyaamaha inta aad akhrisay إن كبدن قف آخرين ما هني قف كلهم وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.